الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد صدوا هذا ولا ليال شيدا جنة جعلوا ولا ليال شيدا جنة إني وأردان ربو الله سبحانه جل وعلا أنتم جنة كسر شيء يا وحده فلذلك فليتنافس المتنافسون هاو ترتمياشو أنت الدنيا لو ترتما وحنا وحبس سوق قينين حلقو ترتما قاريقو قدام بينا رسوقاتو حلقو ترتما موبايل قدام بينا لسو إبسدو إلهين وحو كليهي وترتما جنة داس إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون انتو كسو شيكي الله يودهي فلذلك فليتنافس المتنافسون الله نقول كل مية جنوين كاس إنه على الأرائك أفرفدنا إسقابل سن شيكي سننا قالدنا عذابتي يو كل احتراه عندو في نعلد كتفينا آمين متى هاي قفت علم وحجك آدو ما أودا هداد أودين الحجك آدو محاكو ديدين آدن آدن وواحدا ولي قا صوري سنين وروح دا الجنة دا وواحدا ولي صوري سنين نمعاد هلكا كاقوه الرئيسة يساقوا حبيبك صلى الله عليه وسلم كليه الحج المبرور جزاؤه الجنة حجك لا أقبله أبا القد كيسو وجنه حجك لا أقبله أبا القد كيسو وجنة إلهي سبحان الله الله رسول كيسي أصدق الصادقين أيوحو كليه حجك هدياد آدو والله كا أقبله جنة تقليسا سيدا أوجد إن حجك لا آدو لحجيو وموجب كمد موجبات الجنة محاكو ديدينات حجك آدو إساقو الله كليه ولله على الناس حج البيت على الناس حج البيت من استطاع إلهي وحو الدوشة كاساري وحو كوغو واجب يلي إناد حجيسو لكن سادادا أودين تاسماه لما شيقين هدادا أودين دب مالي لكن ساداد أودو وحا واجب كوغو إن أد حجك آدو محاكو ديدي مركا يضعو حجك لأقبلو أبالقود كيسو يحي جنة ها ونوغا هينو الله دهي من استطاع عدة أودا وحا جيرادتك قار مركا اللي يلاهدو وحا لبوقانيا مقال هبل وحا لتقيا ودن هبل xamaantiisu soo diyaarsanaya alaabtiisu urursanaya safka hore ku jira dadka baxaya wuxuu aadayaa wabiyaal adduunkan ku yaala ay ku soo dalxiisaya wuxuu aadayaa guryo ku yaala adduunkan daaro ku yaala adduunkan laakiin se markay noqoto inuu safarkii jannada la aado ina xajka la aado si jannada safarkeedii loo galo safarka jannaati naciim ee janno kasta tahay baladkeedu cirka iyo dhulka سبحان الله وحوليه ما أودو صفر كقرح ذو بدن يا الله جنوين كيس الله صفر يا يكليه ما أودو يونان أوجين إني تهي صفر كي جعيلك صفر كي حجك صفر كي جنوين كي إلهي سبحانه جل جلاله نمنك قارو حاجرة حاسس كودا هويوين كود أي ربان إني حجك آذان بيتك إلهي صو أركان يوغو أودن نمنكني إني حجك جيان marka loo bandhigay la dhaho war xajka nagee beedka ilaahay aan soo booqano ilaahayna hanoo dambi dhaafe wuxuu qayl buu keenayaa meeshii marmarsi uu meeshii keenayaa markii hooyadii ama xaaskiisa ama walaashigu dhahdo xajka nagee qayl ayuu keenayaa subxaanallah abtiyo qaylka aad keentay ee aad ku diidaysa inaad xajka geyso dadkan waxa weeyaan albaab ka mid ah albaabahii jannada oo aad iska xidho weeyaan qaylkaas aad keentay ayaana iskaga xidheeyay marmarsiyadaas miyaadan ogeyn xajka la aqbalo inuu yahay abaalgudkiisu jannaati naciim waxaan leeyahay dadka awooda inay xajiyaan ha xajiyeen inta aan la gaadhin waqti aynan xajiyi karaynin oo ama ay carrada ka hooseeyaan oo hantidoodiina lagu faakahaysanaya adduunka ciyaalkii ay kaga tegeen ay ku faakahaysanayaan oo dhaxalkii la kala qaybsaday ama ay daciifaan oo ayba hantidoodii waayaan dadka qaar baa markay sidaa xajka uga soo noqdaan naftu ay ka baxdaa سبحان الله قفكاس ما لا حسابينيا محاول لغا حسابيني دنبيgiisii oo dhan isagoo laga soo meeday ayuu badhintay ama hadii uu xitaa dambi lahaa dambiyadii raay ka dhacay markuu xajka ka yimaad kadib hal laba saddexdii dambiye ka dhacay ay waama ku hadlay ama uu maqlay ama uu eegay keliyata intaasna ilaahay uu dambi dhaafaya waayo waxyaabo ka waaweyn uu ilaahay dadka uu dambigooda ka dhaafa xaaji ma taqana xaaji waxa la yiraahdaa qofka حجك إلهي أما بيتك إلهي بوغضا وحونا صون نغضا وحو بوغضا حجك إلهي أما بيتك إلهي وحو بوغضا يسوي الذنوب تأدونك حنبارسن وحونا صون نغضا يسوي سيدي الميرو هذا الشيء وهو يدي حنبارسن هاي مدن بيبولي المهاسي سيدا صوك له يسوي أيو حجك كسون نغنيا تدك قاركود
waxay u safrayaan waddanka waddan, magaalo ka magaalo, meel kastay aadayaan, mashruuc iyo ganacsi iyo waxyaabahan adduunyay u aadayaan. subxaan allah. safarkii jannada laakiinse way ka dhoohan yihiin. subxaan allah. miyaadan ogeyn meesha la booqanaya inay tahay baytullahi alxaraam, baytulcatiiq? miyaadan ogeyn abaalgudkeedu inay tahay haddii laga aqbalo xajkaaga janno? subxaan allah. waxaad soo noqonaysaa markaad meesha aadad ka soo noqoto kadib adigoo ilmo yaro, sida xalay dhalay bay dhahaan soomaalidu, adoo xalay dhalay ah ayaad ka soo noqonaysaa. waayo xajka la aqbalo abaalgudkiisu waa janno. anu gudubna muujibkeenna xiga iyo meel kale. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت. soo dhowaada mar labaad walaalayaal. maalin maalmaha ka mida nebiga sala allahu calayhi wasalam dagaalkii Badar ayaan ka hadlayaa. siduu ku dhacay ayaan siiro kooban dulmarayaa. nebigii asxaabtiisa ayaa madiine ka soo baxay. asxaab yaroo kooban waxay u soo baxeen hanti laga dhacay inay soo ceshadaan oo ay soo laba dhacsadaan. laakiinse meeshii waxay u socday ahayn ayaa kaga soo baxay. ciidan iyo ciidan ayaa meeshii iska hor yimaaday. gaaladii oo isu soo urursato warkii gaadhay iyo muslimiintii oo nebigu sal alla alay wasalam hogaaminayo qaa'idu yahay oo markaasi fara ku tirisa 312 qof ah. subxaan allah. nebigu u dhawaaqay asxaabtiisullah isagoo la hadlaya ayuu u dhawaaqay. waxa uuna dhahay quumuu liljanna carduha asamaawaati waalard. quumuu liljanna carduha asamaawaati waalard. u istaaga janno balladhkeedu yahay cirka iyo dhulka. allahu akbar. idan sababaha jannada lagu galo waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiili illah. maaha fii sabiili alqabiil, maaha fii sabiili alheblaayo, fii sabiili illah. waan kusoo laba celinayaa aljihaadu fii sabiili illah. cabdillaahi bnu rawaaxa radia allahu canh, qaswati mu'ta ama dagaalkii mu'ta, wuxuu ahaa mid jannada is suuraysanayay. dagaal buu ku jiraa, ciidan bay is hayaan. ciidankan maba arkaba isaga, waxa u muuqatay jannadii. uu gabi uu hadlayey, wuxuu dhahay midhihii jannade meel dhow ku yaalle, dhadhankoodu wacnaaye iyo cabitaankeedii macaanaa ee weliba qabooba. yacni muxuu sawiranayaa isaga? dagaalkani waxa maba sawiranayo, jannadii ilaahay buu sawiranayaa. subxaan allah. midhihii jannada ee qof kasta u dhoweydu halku taagan yahay ka goosanayay ayuu sawirayaa. subxaan allah. ee waaweynaa. subxaan allah. waxaa sidoo kale ka qurux badan adigoo ilaahay beec la gala ama baayac mushtari, ganacsi adoo ilaahay la gala oo naftaada ka iibiyo. subxaan allah. allah subxaanahu jala jalaaluhu waxa uu dhahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna. ilaahay ayaa naftooda ka iibsaday iyo maalkoodaba, sababtoo ah waxay leeyihiin janno. wallahi jannada ilaahay waa qaali. alaabta ilaahay waa qaali, mid dheerdheerkaas lagu hela maaha. nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu dhahay damina allahu liman kharaja ay min beyti. qofka gurigiisa ka soo baxa ilaahay wuxuu ilaahay u damaanad qaaday qofka gurigiisa ka soo baxa fii sabiilih, yani sabiil isaga dartii uga soo baxa. ilaahay dartii gurigiisa qofka uga soo baxa. yarju lajra an yacuuda biljr, isagoo rajaynaya inuu ajir helo oo uu la soo noqdo ajir. wa an yadkhula aljanna, jannadana markaasi uu galo. ilaahay talo muxuu u damaanad qaaday qofkaas? ilaahay qofkaas wuxuu u damaanad qaaday inuu yacni jannada geliyo. qofka usoo baxay sabiil isaga awgii dartii, isaga dartii qofka usoo baxay, isaga dartii u dagaalamayo gurigiisa uga soo baxay, ilaahayna markaa subxaanahu jala wacala wuxuu u ballan qaaday qofkaas isaga ah aljanna. janno ayuu u ballan qaaday. xadiidka nabiga sal alla alay wasalam wuxuu dhahay aljannatu taxta dhilaali suyuuf. jannadu waxay hoos taallaa hadhka seefaha hoostooda ayay jannadu taallaa. subxaan allah. xadiid kale sala allahu calayhi wasalam waxa uu dhahay ina allaha acadda liljannati 100 daraja. ilaahay wuxuu ku diyaariyey jannada 100 darajo. maa bayna addaraja waddaraja kamaa bayna alsamaawaati waalard. darajaba darajada kale waxay u jirtaa intay cirka iyo dhulku isku jiraan. subxaan allah. ilaahay rasuulkiisiyo yuu ilaahay u diyaariyey jannooyinkaas. wuxuu dhahay nebigu sal ly slam dadka uu diyaariyey jannooyinkaas ilaahay waxa weeyaan mujaahiduuna fii sabiilih, kuwa jidkiisa u dagaalamaya u istaaga jannadaas. xandala radia allahu canh
isagoo aroosa caawa la aqal geeyey hooyday xaaskiisii la jiifa ayaa wuxuu maqlay dhawaaq la leeyahay soo baxa jihaad baa la aadayaa waa la soo dagaalamayaa jihaad fii sabiilillah ayaa la baxayaa isagoo jinaabaysan ayuu ka soo kacay kamuunan maydhanna yaa ka maydhay malaa'igta ayaa kaga maydhay cirka iyo dhulka meel u dhaxaysa subxaana allah malaa'igta ilaahay ayaa kaga maydhay cirka iyo dhulka meel u dhaxaysa jinaabadii subxaana allah wallahi muujibkan wuxuu u baahan yahay dhabnimo inay kaaga soo go'do dhab yaqiin inaad la timaado waayo allah wuxuu dhahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh mu'miniinta waxaa ka mid ah kuwa ka run sheegay ka dhabeeyey ballantii ilaahay la galeen subxaanahu jalla wacalaa minhum man qadaa naxbah qaarkood wayba oofiyeenoo yani fii sabiilillah bay u dhinteen wa minhum man yantadir qaarkoodna way sugayaanoo weli ma garanaysaa jidkiibay ku jiraanoo inay ka dhabeeyaan bay sugayaan subxaana allah marka dhab ayay u baahan tahay dhabnimo geesinimo mu'minnimo ayay u baahan tahay niyad saafiya siduu u tababaray xabiibku sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa waayo qaa'idkoodu ayuu ahaa muxamed sala allahu calayhi wasalam caqiidadoodu sidee ahayd mid dhab ah oo ay ka run sheegeen ayay ahayd fikirkooduna fikirkeennoo kale ma ahayn ducooyinkii asxaabta waxaa ka mid ahaa ridwaanullahi calayhim ilaahayow dhiiggayaga qaado shubo ilaa oo aad ka raali ahaanayso